مسؤولية مدحوين النبضة قلبه ومسؤولية العلوس وعن إله كبرينا سبحانه وتعالى وطنك بارلمانك يعني يكتبينك يقبع إلهي من القلب قلب معيد إلهي النصير معيد الملائكة إلهي النبوكبه هو يكسر بحاوح الله ضغطاء إلهي النبوكبه dadku markii maalan la doorto oo dadku mas'uuliyad ay saartaan waxyaabo badan ayay sheegaan waxaasan qabanayaa hala yiraahdo laakiin waxaan leenahay amnigii aan haysanay inaan sii adkayno ayaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim sidii aad noo garab taagnaydeenna aad noo garab istaagtaan mar haddii amni la helo ilaahay daacadiisu waa fududaanaysaa waxaan ku dadaali doonaa biidnillaahi alkariim siyaasadda kala muuqdan ee galmudug ay ku sugan tahana inaan midayno oo aan u horseedno isu soo dhawaasho iyo isu tanaasul ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa sida caasimadda galmudug ay isugu timid oo ay isugu timid inay maamul dhisato maantana la dhisay maamulkii ay ku taamaysay mirihii laga buran lahaa in la gurto ayaan ilaahay ka rajaynaynaa biidnillaahi alkariim waxaan kaloo samayn doonaa dib u heshiisiinta dadka reer galmudug iyo soomaali oo dhan inaan aad iyo aad qorshaheena ku daranno oo aan xoogga saarno dadka walaalayntiisa la walaaleeyo maadaama ajar badan uu ku sugan yahay qiimo badan uu leeyahay islaax bayna annaas waxaan aad iyo aad ugu dadaali doonaa isjeclaysiinta dadka walaalaha ah ay isu soo dhawaadaan oo isjeclaadaan iscafiyaan wax wada qabsadaan wada hormaraan ayaan xoogga saari doonaa biidnillaahi alkariim waxaan dhammaantiin yacni aad iyo aad iyadoo maanta uu nagala soo qayb galay halkan munaasabadani aad u sharaf yeelatay sheekheennii weynaa macallinkeenii macallin maxamuud sheekh xasan faarax iyo ugaasyada iyo salaadiinta fadhiya ayakana aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa majliskeenna ayaa ku sharafoobay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ajar badan haydaysiiya ayaan leenaha dhammaanteenna ilaahay hana wadaajiyo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka baryaynaa kuwankeennan qiimaha badan sharafta badan natiijada wanaagsan leh inuu noqdo kii noo horse